حيدكتا شيدان حبك قرحدا لو حاوليو دابن حاليو عمنا جالق ساني وحقيدو حكيم باقوري حيدكتا شيدان حبك قرحدا لو حاوليو دابن حاليو عمنا جالق ساني وحقيدو حكيم باقوري taas waxa xiga way xishoota xayo kama tagin way xuntahayo xasil lama oran waa xun dumariyo gaari xanafgay taas waxa xiga way xishoota xayo kama tagin way xuntahayo xasil lama oran waa xun dumariyo gaari xanafgay حرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحبنينا حمد ويان وحرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا حمد ويان وحرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا حمد ويان وحرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا حمد ويان قيدا حولان روح لحيلدا ولا حرق لا حاولي دمي حبنا كمهلين عندكو محلين حتى من مقال قيدا حولان روح لحيلدا ولا حرق لا حاولي دمي حبنا كمهلين عندكو محلين حتى من مقال taas waxa xiga xanta way baran xiddigta shidan xubka quruxda loo xawilayo daaban xaliyo amna jalaqsani waa xageedo xakim baa qoray xiddigta shidan xubka quruxda loo xawilayo daaban xaliyo amna jalaqsani waa xageedo حكيم باقوري taas waxa xiga way xishoota xayo kama tagin way xuntahayo xasil lama oran waa xun dumariyo gaari xanafgay taas waxa xiga inda Ismaaciil Saleebaan inay maanta hawshooda gudagalno waxaan ku soo wareejin doonaa mikrofoonkan ku soo dhaweyn doonaa caaqil geele maxamuud maxamed alxamdulilaahi rabbil caalamiin ducada allah inagu anfaco dhammaan halkan xafladan quruxda badan ee xafladda meherka dadkii ka soo shaqeeyey ee soo agaasimay ee soo habeeyey iyo marti sharafta qaayaha badan oo ay ka mid yihiin madax dhaqameedka cuqaasha dhalinyarada culimada dhammaan ururada bulshada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma badinayo hadalka runtii waqti dheer ma hayno waayo jimcaynu joognaa salaadii jimcaynu ugu dhow waan jeclaa inaynu haasawno kaftanno isbaranno haasawno aad iyo aad baan u jeclaa runtii waxaan u gudbayaa runtii
muhiimadda ama danta ama hawsha aanu u soconay ardaaga yagan maanta musharaxa wixii kale dib baynu ka dhiganaynaa waayo halkan waa xaflad meher hadalkeedu wuu iska yar yahay wuxuu ka kooban yahay isbarasho iyo duco iyo hambalyo marka waana isbaranaynaa waana haasaaweynaa waana ducaynaynaa insha allah kolley dee meel dheer baanu ka nimiyo gobolka imika inuu sheego laba dal baynu anuu dalka isku dal baan umadee laba dal buu ka dhigay imika hadalka inoo furay maadaamaanu dalka laba ku soconno oo gobollo fogaanu ka nimi waxaan u gudbayaa barnaamijkaga iyo hadafka iyo danta aanu leenahay waayo soomaalidu waxay tidhaahdaan nin haraadan hoob iyo hambaa deeqa marka waxaan ku hormarayaa runtii haasaawiyo dib baan u dhigayaa inaadna siisaan maanta doonitaanka iyo hadafka iyagu waxa uu yahay inaadna siisaan aanu doonayno inanta la yidhaahdo xamda ismaaciil saleebaan oo aanu u doonayno cabdifataax yaasiin selel inantaa waxaanu ku doonaynaa qaran ahaan qabiil ahaan iyo qur ahaan waxaan jeclahay runtii inantaa inaad siisaan oo aad noo meherisaan wixii haasaawaha iyo wixii kaftanana aynu dam ka dhino mashruuc iyaga aad noo tixgelisaan oo marka hore noo dhammaystaan wabilaahi towfiiq dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan labada dhinacba oo runtii maanta la odhan karo waa xaflad weyn odayaal beeleedkii ugu cuslaa gobolka iyo dhinacan kale oo runtii labada dhinacba ay fadhiyaan dad culus marka hore waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baa mahad leh nabadqabkan isugu keenay marka xigta waan soo dhawaynayaa odayaashan maanta halka kan dadabdhigga inoo ah ee meelaha fog ka yimi soo dhowaada waa magaaladiinnii iyo dadkiinnii siduu odaygu sheegay wuxuu hi waxaanu ka nimi meel fog waa runtiisa inkastoo dee ay xafladda tani ay ka duwan tahay xafladaha kale xafladaha noocan ahee ee dhaqanka aroosyadu way ka duwan yihiinoo saf iyo saf baa la noqdaa imanka halkan beesha tan aanu ka soo jeedno dee cuqaasheedii waaweyneyd badhnawa kuwa halkaa iyo waxgaradkeedii iyo labeenteedii soo fadhiya inta xaggan soo fadhidaana waa qayb ka mida baa ku jirta marka waa astaamaha ay xafladda tani xafladaha noocan ay iska leeyihiin waa sharafoo dadku waa siday isugu xidhan yihiin bay xafladdan oo kale u yimaadaane sida ay isu xigaan uma yimaadaan waxaana filayaa dhinaca kale dee waa hartiyeysantiin baan u malanayaa maca hartigii magaalada may waa daaroodaysantiin bode waa kan maca shiikhu waxa weeyaan waxaan filayaa inay dee ka ballaaran tahay majeerteen ama hartiba ka ballaaran tahay marka laga reebo waxaan ku soo dhowaanayaa runtii iyadoo ay maalin jimcaha tahay mas-uuliyadina naga saaran tahay in kulamada noocana imaka runtii lasoo koobkoobo ama laba yareeyey duruufaha jira iyo waxyaabaha jira allah inaga nabadgeliya awgeed anigoo ka jawaabaya dalabkii odayaasha ifraax xamda ismaaciil saleebaan oo aa u doonaysaan cabdifataax magacyadaa iga khaldanaya cabdifataax yaasiin saleebaan salal qur iyo qabiilaba waan idinku siinay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xajigu dee wuxuu ku daray meherkana noo raaciya dee hartiga halkan jooga ee imankana aad hartiyayseene dhulbahantae ugu sukeeya xaggan ugu soo xigo xeer baanu leenayoo mar haddaa dee arrintii hartiyayseen horta soo harti ma tihidinoo idinma socdaan hartigii kale halkani yaaran dee iska bilaabine xeer baanu dee leenoo maalin aanu inanta isweydiisannay iyo maalin aanu isu meherinay iyo maalin aanu shuruuda isku xidhnay iyo maalmahaasaanu leenahay oo waxa weeye aanu xeer u leenahay oo maalinba waxbaa tallaabaa la qaadaa shuruudiyo xeerar baanu leenahay
miyaynu ka daynaa odayaashu meel fog bay dee ka yimaadeenoo waynu koodii markaa waa kaftan intaasina waxa meherkana insha allah waxba dee kolba la soo kici maayo meherkana waanu ku daray oo insha allahu saasaynu hawshii kugu wareejin doonaa wadaadka haddii ilaahay ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inantaa aadna siiseen inantaan idinka codsannay ee aadna siiseen xamde ismaaciil saleebaan waanu guddoominay qabiil ahaan baan ugu guddoomay qaran ahaan baan ugu guddoomay qur ahaan baan ugu guddoomay waxaan u yar noqonayaa harti baanu nahay ninka inantaan u doonaynana horta markaanu harti nahay ha u arkina wax fog ama dad kala durugsan inaanu nahay harti iyo majeertaan intuu isku jiro nimanka la yidhaahdaa cabdalla ismaaciil iskagama fogin haddaan iskaga dhoweyn marka ninkaan marka de kolley ninkii garanaya wuu garanaya laakiin raggii aan garanayn baan u sheegaya waxaan halkaa u noqonayaa ninka inanta maantaan u doonayna waa nin majeerteena waa nin cumar maxamuuda waa nin dalal faaraxa waa nin faarax shirwaca aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad u baahsan tihiin wabilaahi tawfiiq inantaani waanu guddoomanay waxaan u baxay hawshii meel wacan bay inoo maraysaa labadii ardaa runtii ee inanta isweydiistay waa gebagabo way ka soo wareegaysaa insha allah wakhti dhow waxay ku wareegaysaa wadaadka saacadaha soo socdada haddii ilaahay raalli ka dhigo inanka maanta ardaaga iyaga ka tirsanaa ardaagiinu ku wareegaya insha allah ilmuqsiya ka bacdi haddii ilaahay raalli ka dhigo waxaan kaloo u baxay halkan waxaanu bixinay haddaanu ardaaga inanta doonayaanu nahay $4,000 reerka iska leh waxaanu kaloonu bixinay 8 milyan oo shilin somalilan ah waa sooriyadii tolka wasalaamu calaykum كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انت كذب وحامركو هراء مهات لما انت رزقل الله سبحانه وتعالى إنه سورتقل ينعموين كفرها بدن يكلا دوان هدينو حسابنا إن أنتين كرينين وعن كلامهم هاد علينا يا قورتنا يا وحقراتك يا أقوياهنك يا اندير قراتك يا دليران يا علماء حفلة قيمها بدن شرعين وشرفتو يا شيء كسو قيب قلي إلا بضع دنعا آديات بدو مهدسنتين دمانتين با انت كدب وقتك كوما حقوق كل واجب يساه عبد الفتاح ياسين سلل جيف عاقلك يا وكيل وهو مقيا هيسيد الله يشاغي حمد اسماعيل سليبان ولي يدي اول waxaad tidhaahdaa anigoo ah ismaaciil saleebaan oo weligaa waxa weeyaan xamda aabbaheeda ama weligeedii ah adigoo ibraahim xasan ayaan ku wakiishay inaad u guuriso cabdifataax yaasiin salal meherkeedana aad sheegayso inta uu yahay kolley waxaa la ii sheegay 400 oo garaam oo dahaba geel baaba naqaanay oo ah 400 oo dirhan waxa leeyahay 400 oo garaam ودهله عبد الفتاح ياسين فرح سلل بارك الله فيك وحانو بوريي
wakaaladda uu ii wakiishay ismaaciil saybaan oo ah weliga xamda meherkeeduna yahay 400 oo garaam oo dahaba wiilka la yidhaahdo cabdifataax yaasiin salal oo maqan oo wakiil meher u yahay caaqil geelle maxamuud ma u guurisay oo ma u guddoontay meherkaa iyo shardigaa aan ugu guurinay oo wakhtiga ay dalbato la siinayo بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع فيهما خير حفلة قيمها يقايها له dadkii gobolka ugu macquulsanaa ay fadhiyaan siduu sheegay jiif caaqil axmed kayse maxamed ee ay soo ajiireen ee shareecadeenna meesha sare kaga taalla waxaynu nidhaahnaa waa xaflad dhaqan ee waa xaflad shareecadu ay sarraysiisay oo sunnadii ambiyada ah dhaqanka aan shareecada khilaafsanaynna ku sarraysa waxaa kaloo maanta runtii xaflado badan oo meher baan ka qayb galay intaan gobolkan joogay ay kaga duwan tahay dhaqankii hore ee aynu arki jirray ee carruurta in abti loo yeelo ayaa meesha aan ka madhnayn oo ka muuqata taasina waa sharaf kelmadda labaadaan uga gudbaya jiif caaqilkayga aniga laftayda waa jiif caaqilkaygii iyo odayaasha kelmad kaftanaan raacsanaya horta waxaanu ku maraynaa meesha kablalah daarood kale ima muuqdo inama badanoona abti u nahay iyo kuwaan reerabu u nahayna oo madaxda gobolka iyo garxajis iyo habaryoonisba aana waa ii muuqdaan wejiyadoodu allaha barakeeye sharaf bay taasi annagana noo tahay idinkana idiin tahay ee harti keliya kuma marayna meesha waxaan kaloo raacsanayaa garaad maxamed hadalkiisii annagu qoladayadu ogaadeen waxoogay inaan abtidiid nahay iyo in abtiyaashayo ay waxa weeyaan abti naga dhigan waayaan garan mayna xagga nagaana dhaliisha u tiirinayaaye halka uu yidhi cabdalle ismaaciil buu la siman yahay harti waabaan ka hoosaysiin lahay oo faadumo cabdalle arab baana dhashay annaga iyo siciid harti oo dhulbahantaa bal horta taana maanta qabsada cidda aan horay u ogeyn intaa kadib runtii waxa weeyaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u ducaynaynaa qoyskan iyo qarankan qiimaha badan allaha isu barakeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu alla isu barakeeyo qolyihii ducada lahaana way fadhiyaan oo sheekh shaaficibaaba dee qur-aanka inoo furfuro in loogu horreeyey kelmadayda intaasaan ku soo ururinayaa raallina iga ahaada xalfadan quruxda badan oo sida wacan loo soo agaasimay oo xushmadda iyo karaamada leh ducada iyo hambalyada baan awalan u mahad celinayaa marka xigta waxaan salaamayaa jiif caaqilada iyo jiifafka iyo caaqilada iyo odayaasha iyo garadka iyo haddii alla ku imaay saxaafadda ehelka iyo ahaalka meesha isugu yimid sida quruxda badan karaamadoo leh loo guddoonsiiyey xamdo ismaaciil saleebaan oo aanu meel dheer ka soo doonnay 1600 kilomitir aanu u soo jiirnay gabadhaas qaybo gaaray noo leedahay ehelkeeduna qiimo gaar noo leeyahay si wacan oo qurux badan oo ehel iyo islaanimo ay ku jidho baanu naloo guddoonsiiyey waana ka mahad celinaynaa waxaan u malaynayaa inaan soo noqon doono oo aanna intaa kaliya ku koobnaan doonin oon reeraha mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku soo noqon doonaan qiyaasahayaa waayo waxaan kala kulannay meesha waxa weeye taariikhdu ay meel dheer ku qordhay oo ma garanaysaa nala noqotay fajiciso iyo soo dhoweyntii aan meesha kala kulannay dadkii aan ugu nimid marka allah subxaana watacaala baa ku mahadsan salaad jamcaa la aadahayaa dadkuna dee waxaa liyi hadalka ha la fududeeyo anigu waa mahadnaq aanu maqanhaqaayo ilaaha subxana watacaala iyo ehelkii aan u nimid gobolkii aan u nimid deegaankii aan nimid
iyo mudanayaashii iyo marwooyinka aan u nimid baan u mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعلى آله وصحبه وسلم لما واحد سلام يا حفلة مهرك صدق أقيميسن شرفت له لو سوى أقاسمي مر لبعض واحد سلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي مركو رحت واحد من يقلال قولي ku biiraya guriyihii islaamka ayaynu yagleelnay waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay uu isku khayro kuwa diinta iyo dalka iyo dadkana anfacana ilaahay uu ka beero intaa arooskan ku dhaafaya waxaan u kala u mahadnaqayaa qolada reer kablallah ee intaasoo kilomitir loo soo socotay ee intaasoo dada soo dhaaftay ee inoo soo xilatay aad iyo aad iyo aad ayaanu idiin soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya magaca habar yeelis aad iyo aad iyo aad baanu mafsuud uga nahay inuu dhaqankeennii iyo wixii aynu isu ahaan jirnay iyo xididnimadkeennii sharafta lahaa uu dib u soo noqdo oo maanta bilowdaan aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa runtii waxaa jiri jirtay waan iska gaabanay dee nin weyn baanahay iyadoo marka col iyo abaari yimaadaan loo guuro meel inani joogto halkaa ayaa inagaga jiray ila hebelba halkaa inagaga jirtay oo beeldhani ay col iyo abaar kii wadaba kaga baxsato oo lagu dhoweeyo oo magangelyo laga helo ayaa horta runtii dee jiri jirtay maanta dhibaatada taalla waxa weeye inankii inantu dhashay ee intaa qaban jiray inaanu abtiro yeelanin adeerro yeelanin baa runtii maanta bedishay aad baan maxayta u hambalyaynayaa inantaa si gaara baan ugu ducaynayaa inkastoo laga yaabo dee inay dad qurbood yihiin laakiin intaa soo socoteen ilaa goona anaguna mar ay wax nagaga keena xidmaan dee kolley aan u soo socon doona insha allah aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad aan soo dhawaynayaa maanta guurkaa bilaabmay ee dadka dib ugu soo noqday ee sidii dhaqanka iyo tolnimadka iyo xadhigxidhku uu ahaan jiray maanta bilaabmay insha allah anaguna waa ka jawaabi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi maxamed cuqaasha odayaasha labada dhinac ee maanta halkan isugu yimid dhallinyarada dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaa i raaca inanka iyo inanta halkaan maanta isku siinay waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay raas barwaaqa iyo markas ku noolaado ubad khayr qaba oo diinta islaamka u gargaara kala hela inuu ilaahay ka dhigo waxa ii sii raacnaytaa anigu mudugna waanahay tog dheerna waanahay qolada mudug ee maanta halkan aanu inantaan lagu siiseen aad baan idinka mahad celinayaa dee waxaan ahay wakiil abtayaashii halkan u jooga inantana ah inankana ah qolyadii si wacanna wuu inoogu dhacay isweydiiskii aynu isweydiisanayna inantaa qoladeenna reer togdheerna markay xagga aya u jahaysato ama mudug ama daaroodba dee wakiilka sii kaxaynaya baan hadda soo diyaargaroobay sidaa laydinku soo diyaargaroobay oo hablaha doona sidaasaan iyagana ku buurinayaa ilaahay ha inooga dhigo tii khayr leh tii qaar isku ballaaran ha ka dhigo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام
waxaan leeyahay munaasabadda boqorka iyo boqoradda ama caruuska iyo caruusadda baaraka allaahu lakuma wa baaraka calaykuma wa jamaca baynakuma bilkhayr oo fi lkhayr waa madal duco runtii aniga laftaydu kablo laxaan ahayo aad iyo aad baan abtiyadii u soo dhowaynayaa waxaan u malaynayaa markaan iyagu afkooda ku hadlayo ama qoladan dee warbixin ka siinayo meel munaasiba inay martay inantaasu waana ahaan jirtay oo dee inba xoogaa baa la kala yaro maqnaa laakiin safaarada walba waa kala jireen marka aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa martida muraadkoodiina jiifku dee waa kii sheegay ee yidhi xeer baa yaallayoo marka horeba in xagga hore laga fudeediyey waa arkayseenoo ilaa 3-4 maalmood baa isdaba ooli jiray oo maalin wax la weydiistay iyo maalin la meheriyey iyo maalin la isu soo gurguurtay iyo maalin xoolaa la kala qaatay iyo wixiiba waa kii jiifku soo duuduubay ee yidhi maanta safarkaa dheer aawadii baanu u soo duuduubaynaa markaa ducadaas maan ku soo gabagabeynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu guri islaam oo dhulka korkiisa ilaahay ka dhigo guriga ubad khayr qaba oo muntaficiina oo diinta iyo dalka iyo dadka iyo waalidka iyo ehelkaba u gargaarana in ilaahay kala siiyo subxaanahu wa tacaala oo inamo iyo hablaba leh oo ilaahay u barakeeyo waxaan ku larayaa ilaahay aafaadkan dee shirarkii joojiyey ee la qaylinayo cudurrada awalba waa jiri jireen laakiin kii la buunbuuniyey unbaa weyne innagu se geeri baynu isaga diyaarnahay meel kastoo aynu joognaba qofku mar hadduu mustacid geeri u yahay dee khalkhalkuma bannaane eh ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala sharkiisa in alla ina dhaafiyo bismi illaahi kariim mar labaad baan ku celinayaa baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykuma wa jamaca baynakuma bilkhayr wa fi lkhayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين دمان وسلامتين dadka madashan quruxda badan oo qiimaha badan isugu yimid guud ahaan aniga aan idin kala qaadin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anagu sida la idin sheegay waxaan nahay qolada xagga ka timi mudug nalamana aha inaanu martinahay ama aan dhul kala joogno waxay nala tahay inaan mudugtayadii joogno nala tahay sababta waxa weeye dadkani waa dad Soomaaliyeed waa dad wax walba wadaaga diin dhaqan afl wax walba wax macna la ku kala jiraan ma jiraan inta haddaan ka gudbo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka aan u nimid oo aan xididnay oo na soo dhaweeyay oo si fiican noo marti sooray oo si wacansan gabadha noogu wareejiyay waan hambalyeynaa insha Allah taa iyo mid la mid ah insha Allah waan xaggayaga hadii ay markay timaado insha Allah way fulin doonaa hadii rabbiino reerkana waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo dadkaan oo dhan ku isu keenay oo macna sameeyo oo berito insha Allah bridge dadka isku xira oo xididka waxa weeyaan waa laba buundad oo isku xiraya leeyahay xididku saas kale ka dhigan yahay marka saas oo kale to Allah ka dhigo iyaga iyo waxay dhalaan dad wanaagsan oo dadkaan macna oo Allah ka dhigo guud ahaan waa salaamantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ay ka soo qayb galeen labeentii reer Burco iyo labeentii reer Gaalkacyood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga runtii maanta farxad weyn bay ii tahay reer abtigay iyo reer adeerkay oo isu gogol dhigay oo inan isweydiistay oo isa siiyey si sharaf badan runtii farxadda la soo koobi karin bay ii tahay intaa markaan farxadda kaga gudbo waxaan in yar ku daqaqabayaa maadaama aan labada reerba ka dhashay inaan yara iclaamiyo reer abtigay waa reer dalal faarax mahad faarax iyo xirsi faarax iyo khalaf faarax iyo maxamed faarax iyo cabdilla faarax ilmo faarax shirwac cigallowey waa gobo-oda cumar maxamuud ama lafdhabarta cumar maxamuud wey inantuna
وreer weyd siciid xirsi cismaan waa gobocda ayaguna habar yoonis wey marka waa laba reer oo labaduba ay yihiin madaxda habar yoonis iyo cumar maxamuud intaa markaan intaa cilaanka kaga gudbo labadeennan reer ama harti ha ahaado ama kablo laxdaarood ha ahaado iyo habar yoonis weligeedba soo jireen bay ahayd inay isguursadaan isgaataan hablaha ay kala guursadaan sharaf weynna waxaa noo ah maanta hadday curatay oo reer abtigay soo bilaabay inay mataqaanaa guurkii soo celiyaan annaguna abtiyaal waa soo soconnaa waana farxad weyn bay ii tahay intaa markaan intaa ku dhaafo waxaan ku soo gebagabaynayaa ducadii reerka baraka allaahu laka wa baraka calayka wa jamaca baynakumaa fi lkhayr ow bilkhayr ilaahay waxaan ka baryaynaa reer barakaysan oo labada reerba xidhiiriya oo ubad iyo adduunba ilaahay kala siiyo oo raas weyna oo lagu soo hurtay in ilaahay ka dhigo ilaahay saasaan ka baryaynaa maa sha allah intaasaan kaga baxayaa waan soo gaabinaynaa oo jimca aynu joognaa waxaa aan ugu horraysiinayaa ducada inanka iyo inanta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay noqdaan qaar isu barakooba oo xidhiidhka labada beelood ee ballaadhan ee imika halkan wada fadhiya haddii alla ka dhigaayo gacan qabta baanu ilaahay uga baryaynaa oo ubad badana la kala siiyo oo saamiga diinta saami ku leh intaa bacdigeed horta labadii qole ugu faanka badnaa baynu ku wada fadhinaa maasha allah ma jeerteen marka aan ka soo gudbo hartiga ma jeerteen waa nimankii dadka ka dhaadhiciyey in madax madow iyo majeerteen baa siman waxaa imika soo baxay rag aan faani garanayninoo haddii alla ka dhigayo beri dhoweyd faanka bartadoo bartiraynaye maantana dee waaba ka sii darteenoo waxaad tidhahdeen cabdalle ismaaciil baanu haddii alla ka dhigo oo ayaanu la gudboonahay nimaan faani garanaynin wuxuu dee golo ka kaca maahee faankuna de waa maasha allah meesheedana waa ka dharateen annana meesheedaanu ka dhalanay laakiin imika niman baa bartigeeye isaaqoo aad iyo aad faankii u xumeeyey guurkeennunu maanta waa guur gayaana annagiiyo nimankan ogaadeen markii aanu aad u xudidi jirray waxaanu odhan jirray warhooda saddex nin ka ilaaliya guurkeenna nin fulaahoo maganta laga qaadayo ka ilaaliya nin bakaylahoon martida waynu hunguri weyne labadeennuba martida aanad sooriyeyn garanayninna ka ilaaliya nin agnaanahoo aan hadli garanaynin oo aan magantiisa haddii alla ka dhigaya afka ku difaaci karaynin ka ilaaliya horta inankii waa inaga maqan yahay saddexdaa midna yaanu noqonin insha allahu meeshu dee waa fogta ka timaadeen haddaanu nimaadno waxaanu u baahanay geesigii dee ragga u sarreeyey ee haddii alla ka dhigaayo dee difaaca ee jananaarka ahaa intaasu waa firiino way u gudbi doontaa insha allah hungurigana dee waxaanu u garxajis gar hunguriyo habar yoonis iyo herer nin joogaale nimankii la yidhi ayaanu nadoo nalaga hunguri weyn oo dhowaan baanu baranaye laakiin shawka ayaga waa la fadeexadeeyey qaar aanan moodaynin inay masaakiinba ay iska yihiin oo soomaalileyna ayaa bahal dheer la soo baxa oo aan isagu daalayninba annagu habeen baabanu ku qanci jirnay allahuma salli calaa maxamed guurkeenu waxa weeye guur gayaana waa guurkii la arki jiray qoladan haddii alla ka dhigayo warsangeli iyo nimanka dhulbaante intii dowladdii a uga badsateen iyaguunba harti sheegto oo gaashaanbuuroobey hartiga balballaadhiya oo haddii alla ka dhigaya dowladdii puntland ka dhalatay cabasho badan baa jirta xagga iyagana way ka cawdaan inkastay labada gacmoodba ku jaqaan haddana way cawdaane bal dowladdana ku wargeliya nimanka qaybtooda in la siiyo iyagaanu isa soo xignaaye hadalkii intan kaga baxaya waa kaftanka ah haddii yaradka hortiisiina waa qaadannay si wanaagsan baynu inantii isu siinay laakiin berigii hore haddana inta geel laga bixin in meher kuba qabanaya maanaan moodi jirin oo haddii alla ka dhigayo geelun ayuumaanu soo duuri jirin kaasuna waa noo dambeeyaaba ila tahao waa dambeeyaao dee laadheera inanta guursaday halkan nimankan inanta idin siiyey marka hoos loo soo kaco reer weyd baa la yidhaha horta jifada hoose waa nimanka ugu timir jecel isaaq waa nimanka ugu timir jecel awr goola haddaa u qashaan oon timiri la soconin uma aha waa nimanka rodol gaari saaran laba nin baa gaariga la saaraa oo reer weyd waxay yidhahdeen warniyow timir ba ka waraysa gaariga waa markii hawd loo rari jiray dhegtuunbay isa saaran oo waa sheekaystaanoo nin baa yidhi waa maxaa leediin
wuxuu yidhi waa nin wax kale ma lihiine gaadhiga timir baa ka uraysa halkaasay la gaadhay nimankaana waa nimankaa halkaas soo fadhay dheerdheel baad arkanay waana laandheeraa koobaad waa niman xersi cismaana waa weyd siciid xersi waa halkay ku gudho weeye halkay ku gudho wax kale kuma garatide inantuna reerkaasi ka dhalatay dee inankiina noo sheegtay waxay la timi meesha inaan lagu hungoobaynin hadday hiil tahay iyo hadday hanti tahaybo horraanteedii waa haynaa inantana si wacanba u soo doonteen inkastoonu jeclayn sidan inaad ka soo badataan mala dee kharashkaa ka baqateene annagaaba haddii alla ka dhigaya qaabili layne halkaasoo kale markaa ka imanaysaan waa la soo bataa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xidigtaa shidan xubka quruxda loo xawilayo dhaaban xaaliyo xubna jalaqsani waa xaggeedu xakin baa qoray xidigtaa shidan xubka quruxda loo xawilayo dhaaban xaaliyo xubna jalaqsani waa xaggeedu xakin baa qoray taas waxaa xigaa way xishootaa xayo kama tegin way xun tahayo xasil lama oran waa xun dumariyo gaari xanafgey taas waxaa xigaa way xishootaa xayo kama tegin way xun tahayo xasil lama oran waa xun dumariyo gaari xanafgey حرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا حمد ويان وحرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا حمد ويان وحرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا حمد ويان وحرير قبي حمد ويان وحلال قبي حمد ويان طول العين توبة حمد ويان وحرمينا